بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد عليه وصحبه وسلم marka hore galabta safar aan ku imid magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug waxaan la kulmay ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan waxayna warbixin iga siiyeen amniga Galmudug gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb iyo howlgale ay ka sameeyeen meelo ka baxsan magaalada Dhuusamareeb xaqiiqada waxaan bogaadinayaa ciidamada kala duwan qaybahooda inay wadaan howlo lagu dardargelinayo amniga iyo deegaanada Galmudug sidoo kale magaalada Dhuusamareeb marka ciidamada qaybahooda kala duwan waan bogaadinayaa waxaan leeyahay shaqo fiican ay siin shaqadiina halkan ka sii wada sidoo kale warbixin waxay igu siiyeen inay howlgal ku soo qabteen 3 dhagar qabayaal ah oo al-shabaab ah 3daasna waxay ka soo qabteen Camaara marka shaqo fiican ka socoto waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogan u sheego waxaa bilaawdeen in ergada loogu talagalay shirkadda washinta inay ka soo qayb galaan ay yimaadeen magaalada Dhuusamareeb intooda badan ayadana waan bogaadinayaa mar dhow hadduu Ilaahay rabo subxaanahu wa tacaala shirkadda washinta ka furmi doona magaalada Dhuusamareeb marka waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad in reer Galmudug ay tashadaan ay dhistaan maamul ay u dhan yihiin ay kulsoon yihiin ay dhistaan urujeen hadduu Ilaahay yiraahdo